muuqaalkan ila daawo. عقبت لقوا على أنا عقبت لقوا على مع اللي بيجي يلا لقوا على اللي صادق muuqaalkani ila daawo. والله muuqaal kala duwan. muuqaalkii ugu horeeyay aad daawateen waa Axmed Siico Maxamed. mar xubnaha mucaaradka ay ku qaabileen shir ay ku lahayn gudaha magaalada Muqdisho ayaa khudbadaasi uu ka jeediyay. muuqaalkani bal eeg. وإسلاه أحمد سيعو محمد waxaa dhibaatadan ay u geysanayaan ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya xilli uu ku sugnaa gurigiisa uu ku yaala Siinay. Axmed waxaa lagu haystaa sababtii uu khudbad uu ka jeediyay shirkii xubnaha mucaaradka kaasoo Axmed uu sheegay in dhibaatooyin ay u geysteen ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. muuqaalkan oo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada ku baahay أحمد سيعو محمد warbaahinta ayuu ka soo muuqday dhawaan asigoo cabasho ka ah ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo cagaf ay ku xaqeen guri asigu u degnaa. saakay xaafadda Siinay waxa lagu arkayay ciidamo aad u far badan oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. muuqaalkan baraha bulshada saacadii la soo dhaafay uu qabsaday ayaa sidoo kale waxa si weyn ay ugu caroodeen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed. balse lama oga talaabada xigta ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadi doonto ciidankani iyo waliba saraakiishooda oo dhibaatada u geysteen Axmed oo ah oday 70 jir ah oo dhawaan ka soo muuqday warbaahinta.